شيء سديدات سر قاضي هرمون كتستوستيرون كأشواغندا. أشواغندا هري مقال هروان كسميي وحد سوق قرتين الشيء على الصومالي هانو وشيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونيجو ولكن بشك بشيرة إذا الله لوسو دوادو يوتيوب channel كيجا. هدي أتاي مركي كوري تنصب وقطوع حاسس شرب لك أقعد سنين هنا كنال كينا سبسكرايب بعض كوسيبينا ولا جري هذا وما سنته. وحارب أنا كلو بدأ عنتوين سراء قاضي أيه هرمون كتستوستيرون هرمون كرجني ماذا مقال هراء ينكسمينا يجرت كنال كينا كجرا صوت دابو كو حنك هذا اللي وحيابها هو صديقايه هرمون كتستوستيرون سيدو كلا وحيابها سراء وسوق قاضي كرتد ما أنت مقال كان أنا وحكاها هذا دون طبعا عنتو طبعا عنتو هديات استعماشيد هرمون كاغا تستوستيرون أي سراء قاضيان cuntada ugu horeysa ukunta aad ay u wanaagsan tahay marka ukunta ku dadaal inaad isticmaashid marka maalintii ugu yaraan 2 xabo ukun waa inaad isticmaashaa ha iska badin shay walba oo wanaagsan haddii aad iska badisid dhibaato ay ku keeni karaa marka maalinta 2 xabo ukun ilaa 3 waa cuni kartaa haddii aadan ahayn qof riyaada ama jimicsi sameeya waayo dadka jimicsiga riyaadada sameeya oo ugu badnaan 2 saac 3 saac training sameeya waxa laga yaabaa ukuntii ay isticmaalaan inay gubayaan laakiin adigoo qof normal ah ukun badan inaa cuntid ma wanaagsan normally waxa cuni kartaa 2 ukun ilaa 3 ukun ka badan subax ama habeen xilliga cuni kartid sidoo kale ukunta dabcan Soomaalida xitaa mararka qaar ay dhahaan hal xabo ukun waxay u dhigantaa adigoo cunay 1 kiilo hiliba sax dabcan waa maqashaa laga yaabaa marka 2 ukun haddii aad cunto waxay la mid tahay 2 kiilo hilib inaad cuntay cuntada labaad sare u qaadayso hormoonka raganimada romaanka miraha xagana idin soo saara miraha romaanka aad ayuu wanaagsan yahay miraha romaanka isku day haddii aad helaysid inaad isticmaashid romaanka marka mid waxaa jira asigoo casaan ah iyo sidoo kale asigoo normal oo hadda xaafadaha xitaa wadankii uu ka baxaa marka miraha romaanka aad u wanaagsan yahay isticmaal wuxuu ka mid yahay miraha aad ku wanaagsan sare u qaadaya hormoonka testosteronka shayga saddexaad ee sare u qaadaya sanjabiisha sanjabiisha waa daawo aad u wanaagsan tahay waxayna qayb ka tahay waxyaabaha koriya ama sare u qaada hormoonka raganimada sanjabiil ayadoo budaa jirta ayadoo qayrin saa doonto waa cuni kartaa noocii aad helaysid haddii ay budo tahay waxaad samayn kartaa caanaha ku dhex shubanee habeenkii ayaad cabaysaa sanjabiil iyo caano intaa isku karkarisid haddii aad cabtid khalaas lama joojiye ayaa noqonaya shayga afraad sare u qaadaya hormoonka testosteronka tuunta garlic aad u wanaagsan yahay marka iyadana dabcan xitaa dadka dhiigkarka qabo way u wanaagsan tahay tuunta dhiigay dejinaysaa haddii uu madax ku xanuunayo haddii aad hergeb wax xun dareemaysid horta daily normal anaga Soomaali haddii aan nahay cuntadeena mar walba waa lagu daraa tuunta marka tuunta aad ay wanaagsan tahay maalintii isku day xabad tuuna intaad fiiqatid waa cuni kartaa sideeda haddii aad doontid waxa ku karsan kartaa shaah amaba cuntada wixii aad ku darsan kartid marka tuunta aad ay wanaagsan tahay laakiin ha iska badin shayga shanaad ee sare u qaadaya hormoonka testosteronka malabka waa malabka shayashan aan ku sheegaya dhammaan waa wax dabiici ah qof walban waa la heli karaa wax ma ahan oo kiimika ama la sameeyo ma ahan marka malabka aad u wanaagsan yahay waxaa samayn kartaa haddii aad isku helaysid malab caano iyo tuun intaa isku karkarisid waa cabi kartaa habeenkii inta aadan seexan aad u wanaagsan yihiin xitaa sanjabiilka waa ku dari kartaa marka waa waxyaabo shay aad u wanaagsan laakiin koob leh lama ogolo ayagoo daawo oo aad u wanaagsan lama raba inaad xadidkii loogu talagalay aad ka badisid marka koob ka badan maalinkii haddii aad cabtid cuntada lixaad sare u qaadaysa hormoonka raganimada hilibka lo'da iyo beerka lo'da labadaasba waa 2 shay aad u wanaagsan dabcan anaga Soomaalideena kuma badnin hilibka lo'da caanaha aad ugu badanahay inaan isticmaalo laakiin hilibka lo'da aad ayuu wanaagsan yahay xitaa haddii aad rabtid inaad murqaha aad u dhisitid jirkaaga dhisitid hilibka lo'da aad u wanaagsan yahay waayo waxaa ku jirta creatine badan murqaha halkii aad creatine caadi isticmaal lahayd creatine dabiici ayaad ka helaysaa
hilibka lo'da. marka hilibka lo'da qaybta aad ka isticmaalaysa waa midka hilibka gaduudan keliya, dufanka badan aan lahayn, midkaas isticmaal aad u wanaagsan yahay. sidoo kale beerka lo'da asigana aad u wanaagsan yahay haddii aad tahay ama rabtid inaad hormoonkaaga testosteronka sare u qaadid, isticmaal. shayga toddobaad sare u qaadaya hormoonka testosteronka, qudaarta cagaaran. qudaarta cagaaran aad ay u badanta, marka wixii qudaar sheegtaba aad ay u wanaagsan yihiin. avocado kasoo bilow, spinachka, qudaartaas dhan wixii qudaar oo cagaar ku jiraba. xitaa geed waxaa jira la yidhaahda jirjiir, soomaali ahaan ma aqaan waxa lagu dhaha, waxaan isku dayi doonaa xaggan inaan idiin soo saaro. aad u wanaagsan yahay jirjiirkaas, aad u wanaagsan yahay asiga haddii aad isticmaashid. koostada, bukureega, yacni waxyaabaha cagaaran dhanba aad ay wanaagsan yihiin. xitaa digirta, ku dadaal qudaarta cagaaran ayadana inaad aad u isticmaashid. shayga sideedaad sare u qaadaya hormoonka testosteronka, ashwagandha. ashwagandha horey muuqaal hore waan ka sameeyey, waxaad soo qorteen shaygaas soomaali ahaan noogu sheeg. dabcan horta ani soomaali ahaan kuma aqaana ashwagandha la yirahdaa. asiga waxaa jira kaniini laga soo sameeyey, sidoo kale asoo budo ayaa jira. sawirkiisa xaggan ay idiin soo saaraa. haddii aad ka helaysaan farmasiyaasha waad iibsan kartaan, amaba haddii aad joogtid wadamadan qurbaha asoo waxaa la helayaa budo ah. marka xaggan idiin soo saara caleentiisa, haddii aad helaysiin waa raadin kartaa. shaygaasi aad u wanaagsan waana daawo, weliba wuxuu sare u qaadayaa hormoonka testosteronka. marka waxaa la yidhaahdaa ashwagandha. waxaa jira mirooyin badan oo aad faa'iido u leh oo u wanaagsan, sidoo kale miraha qaraha xitaa aad u wanaagsan yahay. marka xaggan aan idiin soo saaraa mirayaashan dhan ayagana aad u wanaagsan yihiin. haddii aad helaysid waa dabiici, si caadiya waad u cuni kartaa intaad jajabsatid loos ahaan, amaba intaad shiidid shaaha ama wixii aad ku darsan kartid waad ku darsan kartaa, ayagana aad u wanaagsan yihiin. shayga sagaalaad sare u qaadaya hormoonka testosteronka, nutiska, waxaa weeye mukasaraad. mukasaraadka haddii lagu dhahaa marka badan yihiin, waxyaabo badan ay iskugu jiraan. waxaa soo gali kara almonda, cashew, yacni way badan yihiin. looska caadiga soo galaya, marka way badan yihiin. sawirkooda xaggaa idiin saara. wixii noocan oo qaabilsanba oo mukasaraad ah haddii aa aragtid haddaynin, aaday u wanaagsan yihiin xagga testosteronka. waana sidoo kale borotiin aad u badan ayaad ka helaysaa. hadda almonda haddii aa maalintii 7 xabo bes haddii aad ka cuntid, caafimaadkaaga sare u qaadaya, waana waxaad ka helaysaa borotiin aad u wanaagsan. marka aad u badsa mukasaraadka, xag caafimaadna way u wanaagsan yihiin iyo xag jir ahaaneedba. cuntada u dambeysa aan kusoo gabagabaynaye sare u qaadaysa hormoonka testosteronka waa seafood. seafoodka marka lagu yidhaahdo seafood, wixii badda ku jira dhan waayo. marka seafoodka malayga, haddii aad joogtid wadan bad leh, wixii badda ku jira aragtidba dam karig. sidoo kale especially malayga aad u wanaagsan yahay. qubaha soo raacay, qubaha asigana wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ama cunooyinka sare u qaadaya hormoonka testosteronka. marka ku dadaal seafood inaad isticmaashid. marka waxaad aad u isticmaashaa qubaha, malayga, yacni seafoodka iyo sidoo kale rubiyaanka. xaggan aan idiin soo saari doonaa wixii seafood aa arkaysid isticmaal. dabcan waa laga helaa wadankeeni. haddii aad u fiirsid soomaalideena aad uma isticmaalno cunooyinka badda. waxaan aad u jecel lahay hilibka kale ee ariga iyo geela. marka isku day ayadan inaad kusoo dartid hilibka badda toddobaadkii 2 mar ama 3 mar. waxaan rajeynayaa 10kan aan kula wadaagay inay sare u qaadi doonto hormoonka testosteronka. mar walbana aaday u wanaagsan tahay inaad ilaalisid hormoonka raganimada. sababta aan uga hadlayna mar walbana muuqaal ugu sameynayna waxay jirtaa dad xilligan la joogo dhalinyaro ugu badan weliba aanan weli guursan. dad qaar waxaa laga yaabaa inay hormoonkii amaba ay ku dhammaayeen shahwadoodii inay daawadaan muuqaalo anshax xumo ah. sidoo kale dadka qaarna ay ku dhammeeyeen inay isticmaalaan balwad iyo waxyaabo kale, amaba dadka qaarna ay fadhiyaan waqti aad u fara badan. muuqaalada hore aan ka sameeyey hore u daawo, waxaad ogaanaysaa waxyaabaha keeni kara saad iskaga ilaalin lahayd iyo waxyaabaha u wanaagsan haddii xitaa hoos u dhacay aad ku ogaan kartid. kadibna waxaad isticmaalaysaa cunooyinkan aan maanta kula wadaagay. insha Allah waxaan rajeynayaa inay wax badan ka saacidi doonaan haddii aad joogtaysid waxyaabaha aan maanta kula wadaagay. haddii aad ka heshay muuqaalkan ha ilooyin walaalaha kale ee khayrka jecel inaad la wadaagtid. intaan kulmi doono muuqaalka xiga,
waxaa idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Peace and love. Nabada ka shaqeyna. Salaam.